السلام عليكم. Welcome to Asia's TV show. موضوع maanta waxa weeyaan markaad rabtid inaad wadada guusha cagta saartid ama aabad ku jirto wehelka munaasibka ku ah inuu wadada cagta kula saaro astaamo nooceeya ayaa looga baahan yahay qofkaas inuu yeesho. taasina ka hadlayna ka faa'iideysi fiican insha Allah soo dhawaada. Welcome back guys. waayahay waxa aad u farabadatay inay dadkii ka hadlayaan hamigoodii iyo himiladoodii iyo aragtida nolosha ka qabanaya halkay u socdaan, laakiin ay ku adkaato arintaas inay ka midho dhaliyaan goorta ay qof nolosha la wadaagaan. macnuhu muxuu yahay? qofkani markuu single-ka ahaa wadu cagta saaray, ragga iyo dumarka labada dhinacbood ka soo eegaysaan. Okay, because labada dhinac way ka dhacdaa, laakiin tusaalaha hadaynu soo fudaydinayno inan baynu ka soo qaadanaynaa. inan hami fara badan lahayd iyo himilo guurkii ka hor wadadii cagta saartay oo arrimihii ay ku hamiyeysay ku dadaalaysay inay gaadho maalinba wax ka dhabaynaysa. And then qof baa la isbarta, waa la isjeclaada, waa la isguursadaa. Okay, nolosha weji kale yeelanaysa waa normal, it's okay. uur baa imanaya meeshii, umul bay noqonaysaa, it's okay. Of course waa dabiici inay hamigaaga iyo himiladaadii aad pause garaysid oo ay yara istaagaan, yani halkaa yara dhigtay barkinka inta waxaan wejigan cusub aad ka gudbaysid marxaladan aad hadda maraysid. waa okay. waayahay ciladu halkay ka timaadaa? walaalayaal ciladu waxay ka imanaysaa isfaham la-aanta. labada qofi hami kasta iyo himilo kasta ay leeyihiin marka hore isbartaan aanay isguursanin. waxa fiican inay ka wada hadlaan qorshaha nolosha, indhahay ku arkayaan wax dastuurkay ku noolaanayaan ee guurkooda ku dhisnaanayo. waa inay waxa ka wada hadlaan marka hore. samaaha waa inuu qofkan yiraahdo anigu waxaan rabaa inaan tacliinteedii dhammaysto. inaan tusaale jaamacaddii bay ku jirtay, waxay hamigeedu inay dhammaysato. hadhowto markay isguursadaan ninkii maaha inuu weji kale uu la soo baxo oo uu sanad kasta ilmo ku raro oo aanay caruurtii kala korinayn sidii diintu tiri, aanu jaanisba siinayn qoftii uu qof kale isagii ku noqday. marka iyadii hamigeedii iyo himiladeedii oo dhan ay carqaladoobeen. waad fahamteen? okay, gabadhuna ninka way carqaladeyn karta walaalayaal, way jirtaa, way carqaladeeyeen dumarku. dumar baa jira markuu ninku guursado ninkii isagoo u dadaalaya reerkiisii oo dhisanaya ay iyadii dagaal hoose kula jirto oo ay ka fikirayso wuu kula guursanaya, hadduu lacagaysto, hadduu kan kale carqaladee lacagta ka kala daadi, difaaca noocaasi negatifeka ahuna iyadiina ku jirto. marka labada qofi walaalayaal way dhacdaa. divorce-ku wuxuu u fara badan yahay, furitaanku u fara badan yahay because wejiga la isku soo galay markii hore ayaan daacad laga ahayn. iyadina waxay rabtaa inuu guursato, isagana wuxuu rabaa inuu guursado, laakiin guurkii wadadu cagta saarayo iyo dastuurka ku dhisnaanayo lama hagaajisanayo marka hore. waa fahamteen? waayahay labada qof marka hore hadday isku soo galeen isfahamka noocaas ay dastuurkoodii soo adkaysteen ay isku tiirsan yihiin, mid kasta kii kale uu yahay garab iyo gaashaan. dan markay guursadaan caqabad kasta way ka wada bixi karayaan, himilo kastana way wada gaari karayaan. waa fahamteen? waayahay sidee uga gudbeen caqabadahaas? sidee u gaadheen himiladoodii? dhib ma laha walaalayaal, sida loo jabo ayaa loo dhitiyaabay Soomaalidu tiraahdo. soo maaha marxalad kasta oo nolosha ku timaado waxaa loo baahan yahay iyagoo gacmaha is haysta, kalsooni isku qaba, istaageeraya inay ka gudbaan. waayahay qodobka fiidiyoogu waxa weeyaan himiladaada qof astaamahee leh ayaa kaa caawin karaya inaad gaadho. marka imika waxaad eegaysaan labadii qof ama xidhiir ha ka dhexeeyo ama guur ha ka dhexeeyo, himiladoodii maxaa loo baahan yahay inay meesha keenaan si qof kasta kii kale uu uga caawiyo inuu gaadho. waayahay ta u horeysa waxa weeyaan walaalayaal inaad jeceshahay qofkaaga farxaddiisa. qofkaaga farxaddiisu inay farxaddaada tahay 100%, oo wanaagga qofkaaga kusoo kordha aad ku farxaysid siduu qofkaaguna ugu farxayo. waa fahamtay? okay, taa astaanta waa loo baahan yahay. astaan kaloo loo baahan yahay waxa weeyaan inuu qof kasta
jecel yahay horumarka qofka kale oo uu ku hamiyayo inuu dabada ka riixo oo uu push gareeyo dhiirigeliyo waa fahamteen dhiirigelintu walaalayaal waa muhiim qofku halkuu ka shidaal qaadanaya haddii aanu haysanin cid dhiirigelisa because walaalayaal wadada guusha marka la hayo way adag tahay wax hawl yar maaha in badan baad kufaysa in badan baad dhacaysa in badan baad daalaysa in badan baad fadhiisanaysaa waxaad u baahan tahay meel aad ka shidaal qaadato meel ka fiican shidaal qaadashona ma jirto aan ahayn qofkaaga gabadhay ninkaaga shidaalka ku shub isaguna shidaalka adiga kugu shubto markuu mid slow down gareeyo uu gaabiyo qofkii kale gacanta qabtaa soo jiido nolosha walaalayaal wuxuu furitaanku u farabatay wuxuu xiriirku u burburayo dadku walaalayaal kuma soo galayaan niyadda caafimaad qabta xiriirkii iyo guurkii dadkeena Soomaaliyeed waxaad moodaa markay isguursadaanba inay aayar bilaabaan inay isku noqdaan cadow laba dawladood isku cadowaad moodaa oo qof kasta kii kale lugta hayo qof kasta kii kale reebayo arrinkaasna waa arrin aad u fool xun isna cid buu keenaya in la kala fogaado hadhowna burbur waa fahamteen laakiin qof kasta hadduu daacad ka yahay dastuurka dan guurkiina wuu guuleysanaya xiriirkuna wuu guuleysanaya waxa looga baahan yahay qof kasta inuu kii kale u sameeyo jawi guul jawiga lagu guuleysanayo waa environmentkii lagu noolaa okay environmentka lagu wada nool yahay inuu qof kasta dhinaciisa ka adkeeyo inuu jawiga u hagaajiyo qofkiisii jawigii guusha lagu gaariyay okay taa macnaheedu maxay tahay waayahay guri buuq badan guri negativitiesigiisu fara badan tahay guri xaasidnimadiisu jawiga kala xidhay hawadii guri aan la isdhiirigelinayn dee maaha jawigkaasi guul lagu gaariyo jawigaasi aad buu u cakiran yahay xanuunaa ku faafi jawiga markaa walaalayaal jawigiina dejisaan okay xarunta laga duulayo waa gurigiina inuu ahaado markasta guri jawigiisu hab yahay khilaaf wuu yimaada isfaham la-aan way timaadaa isfaham la-aan nacam yani qodobo aan isku aragti laga qabin it's okay walaalayaal ha u arkina markaad arrimo isku fahmi weydaan in ay dhibaato jirto ha u arkina waxaad u aragtaan in arrinka aad ka faallootaanoo inaad mid kasta uu ku dadaalo sifo caafimaad qabta inuu kii kale ugu qancinayo aragtidiisa iyadoona ciladi jirin taa waxaad ka qaadaysaan waxaad xoojinaysaan xirfadda wada hadalkiina caafimaadka qaba and then halkaana waxaa ka dhalanaya inuu xiriirkiina sii xoojismo sii adkaado halkaa waxaad kala dhex baxaysaan ood baranaysaan walaahi wada hadal baan caafimaad qabaan kaga gudbi karna dhibaatooyinka iyo aragtida kala duwan because dadka qaar intay isku dhacaan aragtidoodii kala duwaneed intay isku dhacday kala boodaan maba yaqaanin sa loo wada hadlo waxay u arkayaan khilaafka lagu kala duwan yahay aragtida iyo ra'yiga waxay u arkayaan buur bes isfahmi mayno inagu kala kaxay isfahmi mayno hadda ka waran las odhan maayo fikiro sidaynu uga gudubno buurtan bal aynu wada tashano buurtan saynu uga bixi lahayn aynu dhinaca kale uga gudbi lahayn aynu darisno shaxdeeda dhigno qorshayno oo siyaasad keenno meeshii inagoo gacmaha is haysana xaggan kasoo yaro garaac buurtana xaggan yaro jajabiya buurta saa u jajabinaysaa u jafaysaan dumiya wado saafiya ka dhiga ka gudba ma jirto walaali waxaasoo dhan baa meeshii ka baxay ma garateen markaa walaalayaal isfahamku wuxuu ku dhisan yahay wada hadal in badan baan idinku soo celceliyaa caqabad kasta waad kaga gudbaysaan guushana walaalayaal qof kasta ha ka dhiirigeliyo qofkiisii inuu haddii ay iyadu kaa tacliin badan tahay oo kaa maal badan tahay ha u arkin dhibaato gabadhaada ha kuga caan qabato adiguna dadaal badan keen soo gaadh adiguna gabadhay ninkaaga la dadaalo haddaad doonto isa sii dhaafi oo adigii haba ku dhaafo oo u farax waad iga sarreysa wuu kaa sarreeya maaha dhibaato caqabad maaha cuqdadaha ha laga baxo gacmaha iyadoo la haysto hore ha loo wada socdo khayrna waad ni rajeynaya ka faa'iidaysi fiican like tahay la dhaafina page kana soo raaca thank you very much